السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا هلو مغلسان لما انتي سودو هذا هلو ترى عادي مش ذي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بان ذي سلام يا ميل والأو جوجتان با برنامج سيتوسا سودو هذا waxaan rabaa balcaawa inaan erey ka yiraahdo meeshan khabaarka qabta war meeshu mala wallahi meeshu khabaar bay qabtaa wala a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wala al aakhiratu khayrun laka min al ula wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. لما أنتم برنامج كان شيء قد بيعاه وبرنامج هو حساسي وحن ربعنا عن كهالله هلا وضع شجرية وجارسية بيجش ككلا إيو أصحاب تكلا وحن ربعنا عن كهالله معمولك قلوين كشياطين تا أمال الشباب معمولك قلوضة شيء نسبة شيء تا أهل السنة والجماعة magacaas runtii waa qalad weeyaan in loogu yeedhana ma mudna ahlu sunna wal jamaa waxa weeye waa jamaacada in u nisba sheegana haddeen islaam nahay maada yani intimaauka lidacwa ahlu sunna wal jamaa diin ahaanna ma banaana magacaas dad ku qaraabsanaya oo aan magaranayay afkaarta al-shabaab aamisani inay magaca ahlu sunna wal jamaa oo dhan dadka inala yaabayba عالم كان كلا عربته هذا ترى كوا ماشى وحكول لينا جرعين لوريجي وأهل السنة والجماعة في تنت يديك كشقينية وأهل السنة والجماعة هذا ترى يوم مدن كلا إسلام كنا لا وياه يسمع مركب مجا أهل السنة والجماعة اللي هذا توجا تينا ديك هرتا مجا هرتا وين لقى يعني مك ورمجا الإسلام كي غريبيا وحوي إما كسعود وقدر كان أهل السنة والجماعة ده الحسوق يسوي اللي وحنا معاه أهل السنة والجماعة يا هذا وحوي والضيفة المنصورة وكوحد اللوجر جاري إلى قيام الساعة أنتوا قيامه كدعيو وكوحد إلهي سبحانه وتعالى والنصر هذا سيء وأنا مقران ساي وانا كوا الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم كتاجن راعسن حق الرعسن وين كوا صار هذا أهل السنة والجماعة لكن أضيحون أو توجة حروة تكلمني من كلمة ما هذا أهل السنة ما نمان كانوا بدعوا لي الوحيابة كلا آمسين موليدك iyo khuraafaadka waxyaabahaas ay aaminsan yihiin marka ahlu sunna lama oran karaba ahlu sunna uma sheegay magaranayay uma nasba sheegan karaan ahlu sunna wal jamaa waana qalad weyn magaca ahlu sunna wal jamaa u baahan muxaadaro gaar ah laga galo nimankan waa bidcoolayaal rasuulkii ilaahay ka furtay marka ayaan ugu yeernay ahlu sunna wal jamaa intaas aan ka codsanaya si gudbiye barnaamijka way barto waan kala qaadaynaa nimankan si fiican codku ma yihiin codku caadi ma maqlaysan codka ya si fiican soo maqlaysan okay si sheegray haddaad maqlayso si gudbi fadlan barnaamijka oo la wadaaga asxaabta kale caawur wax badan baan rabaa inaan iftiimiyo oo aan ka hadlo maamulka la yiraahdo galmudug horta anigu intii qorqor yimid baan bartay maamulka galmudug gabigiisa ba sheegta la oran jiray waa laba gobol iyo badh lagu sheegi jiray qorqor baan baray horta qorqor qof ka horeeyay oo wax qabtayna ma jiro galmudug bariga imka la maqlay bada yaa maqlay bariga hore yaqaanaba galmudug tan bodbodisay yaqaanaba war Puntland baa la yaqaan soo ma garan laba gobol iyo barkaas ahaydeen dad laangaabo ilaahay maanta u soo diray nin ayaa ninkii bay magaran saar rabaan inay hog inay god ku ridaan oo magaran sa umadaas iftiinka yar u baxay galmudug ka baxay ayay waxay rabaan inay baktiyaan bay rabaan reerkana waaba lagu yaqaanaa inay xiniyaha isqabtaan oo ay horumarnay soo ogolayn dadna maaha ficil leh oo wax dhisan karana maaha waa dad magaranaysa qabyaalada iyo qurunka iyo waxaas ay la weyn meesha reerka degan soo ma garan ninkaas ilaahay u soo diray qorqor ba ilaahay idin soo diray shimbirleed ka dhig galmudug lama aqoonba galmudug ma naqoon anigu ma hore qofka yiraahdo galmudug baan hore u yaqaan meeshan ka soo hadlo
laba gobol iyo bari waxaas lagu sheegi jiray maantana waad arkaysaan heesaha iyo magaranaysaa ciyaartooy inay leedahay inay la tartamayso magaalooyinkii ka horreeyey waxaa keenay ninka la yidhaahdo qoorqoor galmudug markuu cabdikariin axmed hebel guuleed uu joogay yaa yaqaani xaaf markuu joogay yaa yaqaani galmudug baadna leedahay yaa yaqaani war waxaan lama aqoonba maamul iyo badh ximin iyo xeeb iyo waxaasa la maqli jira ximin iyo xeeb iyo guriceel iyo matabaan iyo dhuusamareeb iyo iminkaa la maqmaqal markuu yimid meesha ninka la yidhaahdo laandheerahe qoorqoor la yidhaahdo qoorqoor baa horta galmudug gebiga galmudug ba qoorqoor bay ka bilaabantay haddaan qalad anugu meli xaaf baa joogay yaa yaqaani galmudug yaa yaqaani xataa waxba looma arki jirinba waa gobol iyo bad iyo hal iyo waxaasa lagu sheegi jiray sii shargaraya barnaamijka marka waxa weeye habar gidirey ninka caanka idinka dhigay waa ninkaas saleebaan inaad qabrigiisa siyaarataan caadu dhinto weeyaan sacad baa meesha joogay muxuu ahaa kii hore soo sacad mahayn xaafkii meelaha ku qayli jiray isagoo meelaha ku mirqaamayo baa tasawirkiisa lasoo sawiri jiray galmudug meel baaba'day oo gaaja ka jirto oo lagu mirqaamo oo mooryaan haystaa loo yaqaan iminka laakiin dawlad baa soo yar ekaanaysa dawlad baa okay waan ka hadli doona barnaamijka sii gudbiya waxa weeye markaa waxaan maqlayaa nimankii al-shabaab waa al-shabaab horta ahlu sunna wal jamaaca magaca noo dhiga ahlu sunnana ma tiidin ahlu jamaacana ma tiidin nebigana uma nisba sheegataan khurufaad baa aaminsan tihiin kenya lacag ka soo qaadateen kenya ayaa magaranaysa lacag ka soo qaadateen maamulka maanta galmudug magacaasa ayaa kor u kacay oo dekadii hobyay dhisanaysaa oo horumar badan baa magaranaysa usoo socda kolley darayna ma ogola de meesha xifaaltan ba horta xifaaltan siyaasadeed baa ka yara jira qolada habar gidir iyo reer galmudug habar gidir iyo majeerteen waxaad yara moodaa weliba dee qolada majeerteen yaana odhan nimanka aranjan la aranjan iyo horta iyo galmudug way is haystaan soo mad garan ama dekeda hobyo wardanayo xidh baan leeyahay dekeda hobyo xidhniyo soo maad odhan magaranaysaa meeshana hays kagaba tagaba magaranaysa qorqoras kaga tagaba soo mad garan dadkani mooryaannimadoodii iyo dawladnimo ma garanayaan dadkan dawladnimada ma fahmayaan waa dadka maanta in cabdishakuur baa ku faraxsan in guriceel maanta ay la wareegaan al-shabaab oo ahlu sunno sheeganaysa uu ku faraxsan yahay keep going buu leeyahy keep going war waxaan marka horena maamul mu ahayn laba maamul iyo badh buu hataa war galmudug lama aqoon bade wallahi inaan la aqoon wallahi xataa qof ka hadlaya arki mayso galmudug ma fahanti waxaad degta maamulka reero badanna way degaan sidaa waxaa dega oo kale mursadaa dega mareexaan baa degta dir baa degta waxaasoo dhanna waxa ma siiyaan waxaasoo dhan iminka dirtu maxay ku leedahay waxaa kuma laha dir meesha dirta naga joogta way ku dulmantay mursada waxaa la siiyey guddoomiyaha baarlamaanka mursadana waxaa la yidhaahdaa meesha lagama yaqaanaba mursada wax ma siiyaan mareexaan oo meesha la degan wax ma siiyaan dir waxa ma siiyaan gabooye waxa ma siiyaan dee waxa kala degana ciiddaa ka badanna bal soo sheega waxay siinayaan ma jirto madaxweynuhu mar walba waa habar gidir iyagiiba haddana magaranaysa is haysto oo isu soo haysta saleebaan iyo cayr iyo sacad iyo waaba 4 xabo gebigoodaba 4 xabo ayaa haddana waxa weeye rooblelehelo uu leeyahay meesha sacad waa inuu qabtaa uu taagin oo sacad soo ki meesha maamulay muxuu qabteen sacad maxay qabteen war xaaf iyo xaaf soo sacad mooy odaygii mirqaami jiray galmudug mirqaam baa lagu bartay nin geed soo fadhiyo iska mirqaamayo magaranaysa ay isbaaro u taalun baan arki jiray annagu galmudug hore oo naqaana ma jirto horta qoorqoor oo galmudug waana bartay waqooyiga ma laga yaqaan waxa leeyahay qoorqoor madaxweynaha galmudug kii hore ayaa yaqaanaba xaaf mar buu hargeysa tagayo xataa lama soo dhaweyn waayo madaxweynaha de eg waxaad moodaa galmudug iminka intan uu qoorqoor yimid bay social media gashay meel walba gashay oo habar gidir maamul bay leeyihiin galmudug taa lahayaa oo heesaha kalba madaxaana furan iyo barnaamijyo badan baa dee socda iminka soo ma horta qoorqoor waana bara galmudug laakiin waxa weeye iftiinkaa yar meesha ka iftiimay anigu habeenay dhaweyto life barnaamijka hala sii wada sheergaray lifekan ka horreeyay waxaan ku sheegay inaan ninkaas laandheeraha ah ee saleebaankaa ninkaa laandheeraha anigu cayrna garamayn cayr maxay waaba cayr ba kuwaas cayr kulaha saruur weligii ma maqalba qof xataa saruur weligii ma aragba ma fahanti waxaan caalamka joogo dhan waa saleebaan habar gidir yaad ka tahay saleebaan qof walba oo saleebaan ma fahanti kuwaas sacadkaa soo raaco iyaguna magaranaysa iyaguna waxa weeye caydiidun bay ku faanaano caydiidoo qura dee taarikh laha iyagana rooblelehilowna wada waad arkaysa wuxuu samaynayn qofkan de meesha jooga ee
habeen walba de guntiga xidhaya maaragtay waa sacad baa lidhi kaasoo bal qof saleemaan oo adigu gunti xidhaya waa kaasoo qoorqoor waa laandheere bannaan degay waana reerka u badan habar gidir saleebaan madaxna meesha iyagaa ka ah berrina waa lasoo gebagabaynayaa nimankii kooxda al-shabaab ee maanta ka degay magaranaysaayey guriceel waxa weeye farmaajo caawa diyaaradaha lagu daabulugayaa magaranaysaayey nimankii harimacad berri 10 subaxnimo ayaa gacanta galmudug ee saxda lagu soo celinayaa kooxda al-shabaab anigu al-shabaab baan naqaanaa nimankaas wadaadada iska dhigaya nimankaasna waxa weeye berri baa laga saaraya magaranaysaayey guriceel walaa guriceel baanay joogeen walaa matamaan baanay joogeen magaranaysaayey walaa dhuusamareeb baanay joogeen nimankaaga waxaa loo dirayaa harimacad caawo diyaaradaha magaranaysaayey lagu guray berri subaxa 10 markay gaadho bal waxaa ku dhaca magaranaysaa nimankaa shayaadiinta ah waa la arki doonaa iyo meesha inuu roob le magaranaysaayey al-shabaab intuu soo geliyay meesha war dowladdii shabaab bay la dagaalamaysaa ma Kenya iska celinaa ma al-shabaab baan iska celinaa ma kiiskii badanu galnaa ma doorashadii baan ka sheekeen waxa dadkani ma rabaan dowladnimo ma rabaan nimankan waxaa soo siiyey lacag Kenya soo siisay shaakirka la leeyahay duubka weyn la maartay xirowga diinna ma yaqaan soo mad garan odayga la leeyahay hebel maxamuud sheekh maxamuud sheekhna ma waa shaydaani nimanka noocaasi Kenya ay lacag ka soo qaateen askartii maanta qaabka magaranaysa guriceel loola wareegay markaad aragto waxa weeye waa military cabna laguma sheegi karo waa assassination waa character assassination yani waxa meel la sameeyay si magaranaysaayey ciidankii baa lacag la siiyey ciidanka meesha joogaana waxay u badnaayeen waxa soorta guriceel nimanka joogay ma ahayn dawladda caadiga ah ma anigu aad baan uga shaqeysanahay nimankaas oo al-shabaab bay haayeen waxa weeye lacag baa la siiyey kadibna iyagii baa yiri magaranaysa meesha waan haysanaa laakiin ciidan kale oo meesha soo galay oo dhakada ka yimid ma jirin ciidan kale oo soo galay nimankii baa lacag la siiyey lacagtii markii la siiyeyna waxa weeye dee waa meeshin baa leeyni ninkii meeshu dee askari baa wuxuu yiri ahlu sunna wal jamaa qaar la dhaabaan ayuu buuri ma garatay marka waxa weeye waxaan idin sheegayaa meesha dhibaatadaas horta ka dhacday askartii meesha joogtay ayaa lacagtii Kenya ee dee Uhuru Kenyatta ilaa dan badan buu leeyahay kiiskii badda 12 October baa la gelaya marka wuxuu rabaa inuu soo galo magaranaysa xuduudda Soomaaliya iminka nimankan ciidankan isaga waxaan oo dhan ka dambeeya shaakir isaga ka dambeeya hebelow sheekh maxamuud isaga ka dambeeya waxa weeye waxaan oo dhan isaga ka dambeeya isagaana magaranaysa rabaa inuu meeshan ay soo galaan horta nimanka meesha qabsada waa Kenya marka harimacad waxaan leeyahay sidii berri Kenya meesha looga xoreyn lahaa nimankan Soomaali way yihiin reerkaana way yihiin laakiin aqliga Kenyaanka iyo siyaasadda Kenya ayay fulinayaan nimanka daalimiinta ah ee sheekhyada sheeganaya berri waa in ciidamada qaranka Soomaaliya harimacad waa in nimanka kufsataan waa in la waayabaan kuri waa in kufsi caadi lagu sameeyaa berri inta waagu berri ayay idin hadhay ahlu sunna wal jamaa nimanka sheegtay ee shayaadiino waagu intuu berri ayay idin hadhay rooble lehelo waxaan leeyahay horta ninka waxa ka labadan nin barnaamijka aad u abaabulaya lacagta waxaan ku bixinaya ee waxaan wada soo inay magaranaysaayay meeshan dagaalkan socdo maamulkan habar gidir markii hore dee maamulka dad baa la degan dadkii waxba maysiin iyaga kaligood qaatay ninka qorqor ba horta ilaahay u soo diray qorqor galmudug lama aqoon ka hor lama aqoon galmudug qof yaqaanay oo xataa magaranaysaayay meel ay ku taallay waxay tahay yaqaanay ma jirto waxa weeye ninkaas maanta Saleebaanka ah ee qorqor waa nin wadaniyo weeyaan waa ninka magaranaysaayay runtii in ay la garab istaagay ahayd ninka waxay ahayd magaranaysaayay in loo yiliyay ahayd laakiin waxa weeye meeshaas waxa la rabaa inay sideedii hore ku noqoto markii horeba deegaanada galmudug shabaab baa haysatay waxaan lama kala garanayo shabaabkii iyo askartii lama kala garanayo meeshu meel waalan bay ahayd marka berri dawladda magaranaysaayay ciidanka harimacad waa inay soo gabagabeynayaan insha Allah 10 subaxnimo berri sheekh maxamuud iyo heblaaye shaakir iyo waxaas ma maqli doontaan wallahi ma maqli doontaan berri maanta way ku faanayeen soo ma arkin ha shaakir baa yimid ahlu sunna yimid horta nimankan baatii la sifeeyay waxaan leeyahay qorqor wax talo ku yaala meesha ma jirtee Kenya ay nagu soo duushay waxaad xoog iyo tala hayso berri meesha gee ciidamadii dawladda ee harimacadna 10 subaxnimo diyaaradda way ka soo degayaan bal meeshu marayo shaakir
shaakir duub weyne orod badne wax ka orod badnaa ma jiro horta UK habargiri kaas habargiri UK warka duubka weyn le odayga duubka weyn le habargiri UK iminku carar doona iminku kiiriyo baxsan doona sheekh maxamuudow ama waxaad ka dhibtaa Puntland ama waxaad dani u tag ama waxaad u tagtaa magaranaysaa Uhuru Kenyatta u tag ama Axmed Madoobe u tag bari ciidamadii hare macad baa ku soo socda shaakir shaydaano walla inaad magaranaysaa calaf damba dhigin maysi nimanku waa ku soo socda soo ma garan qorqorna ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed ayaa garab taagan awoodna waa leeyahay uu iska dhiciyo bal bari dadkiina Facebookada ka qeynaya waxa weeye gurceel baa la qabsay gurceel bari dharbaaxada isku dhacdaan eegi doona taydu ku dhacda bari waa la eegi doona soo ma garan ninka magaranaysa galmudug sameeyay sharafta galmudug u yeelay magaranaysa galmudug ummadda baray waa qorqor isagaana id haysanaya ilaa yawmidiin isaga id haysanaya ma fahanti ummadda Soomaaliyeedna ninkaasi taageersan yihiin war meeshu tuuleheed nin galmudug yaa yaqaan galmudug tuuleheed lama aqoon wallahi inaan la aqoon wallahi meesha maamul miyay tahay waa mar waxa la jiro waa maamul iyo bad mar waxa weeye waa laba iyo bad mid iyo bad mar baa la jiro waa bad ma fahanti waxay rabaan inay wax dadkana ma rabaan dawlad waxay rabaan in maamulkii iyo in isbaaradii ku noqdaan bay rabaan meesha waa la kala gogoyn jiray oo galgaduud magaranaysa dhuusamreeb matabaan barxaley waxaas la rabaa waxaas magaranaysa ay xaafadaasi rabaan nimankan waxay rabaan inay magaranaysa ay xaafadii soo celiyaan bay rabaan soo ma garan war dekedii hobya loo dhisay dadkan horumar ma rabaan dadkan horumar dadkan nadaaya ma rabaan si shargalay barnaamij marka waxa weeye roblow qorqor baad badihiisa gashay soo ma qorqor oo intaasoo jeer farmaajo intuu xilka ka qaadayay ka maslaxay baad caaw badihiisa gashay soo ma bayno Cabdishakuur iyo Kiini inay ku wado waa la arki doonaa meeshan qorqor ba galmudug ka taliya xildhibaanada aqalka sarana isaga ayaa soo xulaya intuna farmaajo u codaynaya waa la soo xulaya magaranaysaa waxa la isku haystaa aqalka sarana la isku haystaa meesha markuu arkay Roble Lehelow ilaa meel walba waxa weeye ceeb ba ka raacday Roble war waxa weeye gobolada Somaliland doorashadoodii waa lagaga badiyay hal magaranaysaa laba qof bay ka heleen mucaaradka dhani galmudugna waxa la rabaa sanataradii aqalka sare magaranaysaa ayaa la soo xulaya marka ninka Roble la yiraahdo iyo in Cabdishakuur iyo muxuu ahaayay Xasan Gurgurta iyo nimankaas waxay istuseen waxay yiraahdeen war heedhaha hadday sida nimanka doorasho ku dhacdo oo nimanka qorqor soo xulo meesha awood kuma yeelanayno marka si dagaal bayn sameynayna si aynu magaranaysaa aynu ugu yeelano xubnaha ugu badan marka dagaalka nimanka la wadaa waxa wada Roble iyo magaranaysaa in Cabdishakuur Xasan Sheekh waxaasoo dhan waxa weeye dagaalka way ku qanacsan yihiin waxba yaaray meelaha al-shabaab hala dagaalamo in la islaayo maaha waa beentood munaafiqiin weyn munaafiqnimo waxaasoo kale weyn qulubtooda waxa ku jirta inay meeshan magaranaysaa rugmato oo ama magaranaysaa saa maamulku ku baabao ama magaranaysaa meeshan ay kuraas ka helaan horta wax dawladnimada meesha ay ka rabaan ma jirto dadka meelaha qiireysanaya habar gidir ta kala qaybsanaya in kasto habar gidir ay inta magaranaysaa miirka qabta ay dantooda garanayaan war habar gidir maxaa u dana shacabka meesha degan galmudug maamulka galmudug la yiraahdo imika la yaqaan imika la bartay maxaa u dana dagaal miya nin al-shabaab magaranaysaa ay ka dhaxwado ama rasuulna wal jamaa sheegta ama wuxuu doonaa sheegtay makaasa dantiinu ku jirtaa dantiinu makaasay ku jirtaa ii sheega maamulka yar qorqor sameeyay ma waxa rabtaa ina haaf iyo badhki ku noqotaan haaf iyo badh mid iyo badh weligay ma arag meel leeyahay waa mid iyo badh xaafad iyo badh magaranaysaa dukaan iyo badh waxa weeye waa caqaar si caqaar ni qaad nimanka qaadka hal shar garay barnaamijka si gudbiya beejka waxba ku yara jireen iyo mooj waxa ku dhacay waxa weeye waxay rabaan mid iyo badh half ni waxaasay rabaan waxa maaragtay magaranaysaa baaba abay rabaan waxaas soo ma garan dekadii hobyaa la dhisay wariya aranjaan danayo dadka lama ribtid horumar lama ribtid warinka qorqor magaranaysaa danayo siyaasadda si kala ula xifaaltamo kada dhibaatada adiga laftaadu aad hurinayso kada warimaka dekedan hobya hadii la yiraahdo qolo walba risqo eeg boosaasana xirmi may sorto mid baan idin sheegay
dekeduu boortisku way iscamiraan dekeduu iscamiraan dadkan Soomaalida mushkiladda haysato ma taqaanaa kuwa dekeda berber waxay isleeyihiin boosaaso hadday magarasa aad u shaqayso oo idka hormarto waxa weeye waa berbera xirmaysa waa been boosaaso waxay isleedahay haddii magarasa ay dekeda hobyo aad u shaqayso waxa xirmaysa dekeda magarasa ay boosaaso waxaasay aaminsan yihiin inna allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri xisaab warisiqa ilaahay baa bixiya meherad magarasa ay xidhaysaa ma jirto deked xidhaysaa ma jirto risiqa ilaahay baa bixiya yaa la isxaasidi fawdadan dad baa dab kusii shidaya nacaska dee habar gidir sheeganayaana waa doqon dee isaga magaranaysaa ee lagu shaqaysanayo waa rooblo lagu shaqaysanayo rooblo deegaankiisa uu duminaya meeshan uu duminaya galmudug waalkii meeshuu duminaya ma dekeda berbera imika uu ka shaqaynaya inuu dumiyo ma dekeda boosaasu duminaya bal ii sheeg rooblo hello waxa weeye gunti aad geejisay iyo Kenya aad u fataashay iyo shaqada waxaan ahay ma yaqaan deegaanku soo weeraray meel kale maaha deked kale maaha dekeda muqdisho maaha ta berbera maaha ta boosaaso maaha dekedu soo weeraray waa galmudug oo ay degaan reerkiisu waxaan islaynayay maanta magarasa ay ku dhamaaday meesha lagu laayayna waa reerkiisi uu kursiga ku metelay weyn laakiin waxa aniga kuwa magarasa igaga sii daran kuwa u sacabtumaya leh gurceel baa la qabsaday berina waxa la qabsanaya hiblaayo magarasa ma intaasoo meelood baa la qabsanaya dagaalka meesha ka dhex wada dadka isdilaya ee isku dhamaanaya rooble lehelo waa dadka kursiga ku metelay weyn dekeda xirmaysa waa dekeda hobyo hadday dhisanto ta boosaaso ma xirmayso saan aaminsan anigu ma fahanti aaranjaanna waxaan leeyahay baqashada iska saara dadkan dekedan yaray samaysteen hobyo la leeyahay u haneeya war hobyo ha furanto boosaaso ha shaqayso dekedaha Soomaaliya oo dhan ha shaqeeyaan Soomaal garan laakiin dhibka waxa weeye rooblow inaad ku wada meeshan adiga ina Cabdishakuur ninka leey ina Cabdishakuur codsan ku heli maysid sidan laguma soo baxo sidan madaxweyne laguma noqdo been baa lagu sheegay wallahi inaan sidan madaxweyne lagu noqon sidan madaxweyne laguma noqday waxaan ka dhex wadaan meeshaas dadka masaakiinta ah deegaanada iska abaarta ah iska biyo la'aanta aad ka naxayso ya deegaankaas gurmud buu Soomaali u baahan wallahi la caawiyo baahan wallahi dadkaas waad arkaysi dhibaatada meesha ka muuqata dhibaato xun baa ka muuqata anigu aad baan ugu xumay dagaalkaas meesha laga wado ninka wadaana waa Rooble iyo Cabdishakuur laakiin lagu daawan maaye berri baa magaranaysaa hobyo fishing port only waxaasad meesha kusoo qoraysaa hobyo caynkana war hobyo waxa weeye hobyo inay hagaagto sodigan diidanba ina makaad iska qaban laada ina mako halkana hobyo aad kusoo qoraysaa hobyo ninka gacanta ku haya dhisaya waayo soo qorqor ma qorqor ina habar gidiray garab istaagtaan soo ma qorqor aabihiin qorqor ina ku doofayshan soo ma qorqor ninka dadkeedin baray soo ma qorqor soo laandheerihiina ma war hoy ninka la shaqeeya war habar gidiray war gaarsiye meelahaas iga wada daawanay isbaar u taalle war ma maqlaysaa habar gidiray yaa ayuha habarta loo yaqaana habarta ma maqlaysaa war waxa weeye maanta deked baa yeelateen maanta waxaa irbooda yeelateen maanta magaranaysaa ay sharaftiinni baa soo noqotay karaamadiinni baa soo noqotay caydiid siduu idinka dhintay agoon baa noqoteen agoon habar gidirsu caydiid uga dhintay wada agoon bay noqdeen waa agoon inantu waa agoon weliba agoon iyo raja bay noqdeen suu caydiid u dhintay caydiid baa reerkaa wadwaday oo magaranaysa magac u yeelay oo meel gaadhsiiyey caydiid siduu u dhintayba reerku waxa weeye agoon iyo raja bay noqdeen maanta ninkaasaa ilaahay soo saaray kaa guntiga xidhaya wax dan oo idin wadaa ma jirto qabiil ha ku kala taageerina waa Sacad iyo waa Siciid iyo waxa weeye maxaa la dhahdaa Saruur iyo Cayr iyo magaranaysaa Saleebaan iyo nimanka horta ugu deganay maskaxda leh aqliga leh hobyo dhisaya meesha hagaajinaya galmudug magaceeda hore mariyay waa qorqor reerkiisa galmudug haday ka tagaan way baabaysa galmudug anigu waa saan aaminsan haddii reerka Saleebaan la dhahay magaca nabi Saleebaan leh hadday meesha ka tagaan way baabaysaa meeshani xaaf baa fadhiyay waa intuu ku qaylay meesha ayuu magarasa Hargeysa tagay xaaf yaa yaqaani xaaf muxuu soo kordhi waxba muu soo kordhi wiilka yare magarasa ay qorqor baa meesha yimi maamulkii baa la hagaajiyay al-shabaab baa meesha laga xoreeyay dekadii bay dhisteen habar gidir waxa weeye faanaysa oo miidiyaha leh
maantana madaxaana furan galmudugey heesta galmudugey heesa loo qaaday magaranaysa ay kubaddii tartankii kubadda meel fiican galay markaasaan baranaysan war heedha galmudug waxaan hore lama aqoon halkii ka yimaadeen galmudugtani war nimankan maamulkii uu haysan jiray maamulkii raqda ahaa ee uu xaaf maamuli jiray maan ahayn wala imika cirkaasay marayeen cirka maamul goboleedadii kaloo dhan puntland way soo gaadheen somaliland wax yar bay u jiraan maamuladii kaloo dhan magaranaysa intaasoo ka horreeyay 20 sano iyo 30 sano dhisnaa waxa weeye way soo gaadheen galmudug marka laga hadlay ninka soo gaadhsiiyeyna waa ninka Saleebaan weyn Saleebaankiiba waxa Roble leeyahay ninkan waa Saleebaan meesha soo xukumaa u taagay ninkan aniga hay taageero war ma taageerayo Soomaaliya ninkan waa nin Soomaaliya wuxuu taageersan yahay magaranaysa in wadanka Soomaaliya badiisa ay magaranaysa Soomaaliya ku guulaysato kiiska badda ninka la yiraahdo qorqor waa ninka qura ee magaranaysa badda Soomaaliya sidii dib loo gacanta magaranaysa inuu gacanteena ku soo noqon ninka ka shaqeynay qarashkiisa iyo waqtigiisa iyo timekiisa ku bixiyay waxa bar gidiran ninkaas wadanayaan arkaan wax hadii caaw la weydiyo war qof wadani iyo habar gidir ma jira oo dalka iyo dawladnimada iyo islaamnimada u naxaya waxa weeye waa ninka la leeyahay laandheeraha wiilka libaaxa ay magaranaysa Saleebaan weyn waa ninkaas weyn ninka ragga weyn markuu hadlay sida adag u hadla Roble waxaan malaynayaa habar gidirta caadiga ma Roble jileec waxa weeye gunti nin u xiray iyo hadal jidacsan iyo meelaha uu iswaan wuxuu la ordayay baa saleeto maxaa James Iswaan hala shirkay barnaamijka James Iswaan ayuu la ordayay baa jasiira waa ninka magaranaysa hadda xilka dhan loo dhiibay leeydi war dalkan iyo dadkan magaranaysa wuxuu qabo waa ninka kolba ninka magaranaysa ajaanibka la orday way Roble sharaf darrada uu inagu hayo waxaan kaga gamaynaa in ku iloobaynaa qorqor halgankiisa haddana maanta qorqor meesha joogi lahayn ninka sharaf darrada reerkaas waxa weeye way dul hogan lahayn habar gidirna ninka maanta sharaftooda badbaadinaya waxa weeye qorqor meel walba leen iyo war Roble wadna ceebaysa Allah ku ceebayo war waxana sameeynin Roble waxa weeye habeen walba waxa laga horjoogaa ceeb laga horjoogaa war waxa la yiri magaranaysa qorqor uu la hadlay xubniyo waad ku qaldanayd buu yiri inaad magaranaysa Uhuru Kenyatta aad nigas iyo buu ma xidho habar gidir sharafteedii baad Allah ku sharaftaa ka dilay sharaftii baad naga dishay wax dambe ha sameeynin cid dambe magaranaysa isla sawirin dhagiga la waaniya waansan mar Roble ayaa deynayay inuu magaranaysa nin ajaanib ama nin cadaana inuu daba ardo oo magaranaysa isla sawir ma deynayo ninkaas Soomaaliga marka waxa weeye Soomaali waxaan sheegayaa qorqor ninka la yiraahdo maanta ninkaasa dadka farakutiriska Soomaalinimada ka soo haray ninkaasa kamida Soomaaliga blue makeup ayaa ka dhashay waxa la isoo qoriyay war blue makeup iyo ka dhashay ma war blue makeup maaha Saleebaan maaha blue makeup Saleebaan maaha waa Sacad waa ninkan meelahan ka soo qeylqeyliya in adeerki weyn soo maaha kana subhanallah blue makeup maaha reer maaha Saleebaanna maaha cayrna maaha saruurna maaha horta saruurku waa niman wadaadaayo u badan yihiin saan arkay anigu laba qof meelahaas aan arkay saruura wadaadaayo u badan yihiin alla yaqaana Saleebaanna waa nimanka ugu sharafta badan leh ugu hantida badan leh ugu aqliga badan leh weyn waa nimanka magaranaysa xagga siyaasadda qorqor iyo nimanka ugu badan ee magaranaysa Soomaaliya mitira siyaasadda waa Saleebaan weligoodna iyaga saahan jiray habar Sacadka ciidiido qura ka dhashay qof kale ma ka geerinaysa Roble lehelowna waxa weeye taariikhdii wuxuu masaxay ciidiidu masaxay marka waxa weeye war ninka waxa nin sharaf la haysata reer galmudug barnaamijkeena kullu waa daawan doontaan waa nin sharaf la haysata war qorqor ninka la magaranaysa magaciisu yahay qorqor ninka la yiraahdo waa mahdi ilaahay idin soo diray ilaahay baa idin soo diray war tuula haydeen war gobol iyo barba haydeen wallahi bilaa waxa ka maqli jiray iyagoo Puntland ay leeyihiin waxaan waa gobol iyo barbe reer Puntland baa soo oran jiray reer Puntland baa ka maqli jiray war waxaan gobol iyo barka anaga magaranaysa waxna lama yeelan kareen ma faham gaalkacay waxay ka deganaan jireen xaafada la Baraxley Hargeysa waxaan ku maqli jiray meelahaas iyadoo la leeyahay Baraxley bay degan habar gidir Baraxley bay degan Baraxley oo qura degnay ma fahanti war waxa weeye magaranaysa maamulkaaga waa la yeesi jiray awood maad lahayn
deked maad lahayn qoor baa ilaahay idin keenay waa ninkaas laandheeraha ah ninkaa laandheeraha ma la shaqaynaysaan hadday la shaqaynaysaan loo soo dira rooble magacii laba biyo magaca rooble inaga dar rooble qof maaha inaga dar rooble meesha ha keeni walaal ha keeni rooble ma garanaysaay nimankan habar gidir waxaa ka dhashay nin la odhan jiray cabdillaahi ciise oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda soomaaliya cabdillaahi ciise nimanka horta ragga reerka ma garanaysaay habar gidir reerka soo maray badankooda saleebaan ba ahayn cabdillaahi ciise soo saleebaan ma ahayn war cabdillaahi ciise ba ii sheega waxa weeye qabiilkiisa waa ii gooyey cabdillaahi ciise yuha bal ii soo qor amina dhoolaad baan ku salaamaya cabdillaahi ciise yuha ninkii cabdillaahi ciise la odhan jiray soo nin saleebaana mu ahayn war qoor soo saleebaan maaha war waxa weeye ninka la yidhaahdo ii soo gara allahuma salli calaa maxamed nimanka wadaadada ah wadaadka ma garanaysaa maxaadarooyinka jeediya waxan oo dhan waa saleebaan ma fahanta cabdillaahi ciise wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ma garanaysaay ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore ee ummadda soomaaliyeed buu ahaa sharaf badan buu keenay ma garanaysaay waxaa la leeyay cabdillaahi ciise sacad buu ahaa ba la leeyay war maaha ku hubsada war waxa la hubsado ninkaas malaa sacad mu ahayn war ninkaa iga hubiya waxa weeye horta rooble reerkan ma garanaysaay 5tii sanaba ama 10kii sanaba nacas baa kasoo baxa horta nacaska sanadkani waxa weeye waa rooble haddii maca ahaan cabdillaahi ciise hadduu maca sacad yahay sacadka ay soo qoraysaan badankiinu anigu saleebaan baan u haystay ninkaas inuu saleebaan ahaa waayo nin walo habar gidiro fariida waxaan salaadaa waa saleebaan baa anigu san aaminsan ma fahanti cabdillaahi ciise ninkii la odhan jiray wuxuu ahaa nin ma garanaysaay dee garanaysaa taarikhda soomaaliya meeshu ka galay caydiid baa garanaysaan generaal maxamed faarax caydiid ilahay u naxariistee ninkaasuna wuxuu ahaa nin aan lagu dhegi karin bu ahaa ilahay u naxariistee ummadda soomaaliyeed oo dhanna sharaf soo hooyey rooble iyo muxuu ahaa cabdikariin axmed guuleed iyo nimanka horta habar gidirnimadaba aan u nacay oo kuwaas wey waa rooble waa cabdikariin axmed guuleed waxa weeye waa badgate muxuu ahaye cabdiraxmaan cabdishakuur saddexdaa markaan arkaan habar gidir ka boodaabano inta kale caadi bay ahayd taariikhdoodu cabdillaahi ciise kasoo bilow caydiid legacy bay ka tegeen legacygii ay ka tegeen habar gidir waxa masaxay oo ma garanaysaay istiraasho mariyey problem ma fahanti mahad salaadna ku dar cawdu billaahi min ashaydaani rajiim naarba naar bay ka subxaanalaysataa naaru zamhariira wa naaru jahannama naaru way kala darayin naarta jahannama naarta zamhariira la dhahdo waxay ka subxaanalaysataa jahannama qul naaru ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyay qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun naarta jahanabaa ka kulan hadday garanayaan markaa naarba naar bay ka subxaanalaysataa mahad salaadna miyaa kusoo darteen okay mahad salaad baan ilowsanaa reerka waxaa baabiyey magaciisa oo baaba ka dhigay habar gidir maanta oo ummadda uga cararaysaa habar gidir markay maqasho waxa weeye waa robleleelow mahad salaad iyo in cabdiraxmaan cabdishakuur fiqi baa lasoo qorayay warkaa fiqi laleeyahy wax dhibaataa ma sameeyo fiqi halkuu wax ka sheega ninka fiqi la yidhaahdaa waa nin xoogay magaranaysa diinta yaro yaqaana waa nin magaranaysa iska wadaada weeyaan markaa fiqi ninka la dhahdaa maaha mahad salaad iyo waxaan oo kale maaha fiqi ninka la dhahdaa waa nin xishoodo sharaf leh iyo nin la dhahdo cabdixakiin ee xildhibaanka ah aada dowladda u taageera cabdixakiin si fiican baan u garanay ninkaas soo suudaan baan wada joogi jirnay guddidiisoo baas buu ku jiray Somali Business Association war dameerka ay soo qorin magaciisa igada kaasna waa baaba reerka dilay waa ina mako waa ina salaad waa ina magaranaysa cabdikariin guuleed waxa weeye waa rooble afartan nin reerka loogu horreeyay afartan nin haddaan habar gidir iska qabanna halkaasii taagnaanay waxa weeye maanta reerka magaranaysa sharaftiisa waxa soo nooleeyay blue makeup iyo waxaad sheegaysaa nagala tag waxaan meesha ku soo qorin adeer meesha war ma maqlaysaan war meesha blue makeup ay ku soo qorinay subxaanallah meesha waxa weeye degalka wadaad baa iska leh markaa adeer meesha ay igu soo qorinay blue makeup iyo waxa ay xasuusin waxaas maaha reerkay hadday doonaan be taakay inaga daay dadkaas waxa weeye xaaf isagoo laftiisu wuxuu iska ahaa oday iskaal laftiisu dhibaato badan ma laha xaafku waa oday iska magaranaysaa ganacsada ah oo meesha dee si nasiiba ku yimid reerka waxa baabiyey mahad salaad
ina mako iyo in magaranayay rooble gunti geejiye iyo magaranayay muxuu socdaalkaasuna marka waxa weeye habar gidiray war maanta dekad baa yeelateen maanta dekada Hobyo waxay noqotay international port bay noqotay kalluunkii iyo fishingkii wixii oo dhan wad yaabaysa dekada Hobyo markaad saaw eegto wad yaabaysa cabdi qaybdiidna warlord buu kaasuna waday kaasuna waxa weeye kaasu karaabo badan ma lahayn nagada cabdi qaybdiid yaan loo soo sharxin meeshaas war waxa weeye waa ogtii aqalkiisa cabdi xaashi baa meesha noo fadhiya oo ilaahay nagu soo inkaaray cabdi xaashi ayaa ma garanayay aqalkiisa ee Soomaaliland fadhiya waxa meesha fadhiya ninka la yiraahdo muxuu ahaayay Muuse Suudi oo ka daran Muuse Suudi horta Muuse Suudi ma garanayay wuxuu yiri anigu waxana ma qaban iibuu ninkaas runtu sheegay Muuse Suudi runtu sheegay ninka Muuse Suudi ka daran waxa weeye waa odayga la yiraahdo magaciisa cabdi xaashi oday ilaahay nagu soo inkaaray weeyaan oo meesha noo fadhiya waxa ka daran cabdi Ismaaciil Samatar oo qabyaalad iyo qurun iyo magaranaysa reernimo iyo inuu dadka Mareykan wallahi dadka Mareykan joogo dhan way nacibin cabdi Ismaaciil Samatar dadka Mareykan joogo dhan way nacibin waxay ku leeyihiin barnaamijka si gudbo shar gareey cabdi Ismaaciil Samatar waxa la yiri ilaahay u naxariistay professor Kenny qaaliga ahaa Galayd ayaa wuxuu jaamacad Minnesota ku taala ayuu shaqo u raadsaday baa la yiri ninka magaranaysa macallimiinta Mareykanka ku diray yiri ninka waxa weeye lacag buu soo xaday ninka magaranaysa dad buu soo laayay magaranaysa jaamacadda inuu professor Khalifa Ali Khalifa Galayd ka shaqeeyo u diiday wuxuu ahaa odayga cabdi Samatar leey odayga cabdi Samatar leeyahay Mareykanka waa laga nacay adduunka oo dhan baa laga nacay meel walba oo laga nacay meel aan laga nacbayna ma jirto jijiga waa laga rabo Hargeysa laga rabo magaranaysa Boosaaso laga rabo Soomaaliya laga rabo odayga news waxa weeye Soomaalinimada dheerad buu cabdi Ismaaciil leey Soomaalina saasuu xaasida Mareykan waxa weeye qof Soomaaliya hadduu jaamacad isla wax ka dhig ama madaxa uu la soo kaco isaga madaxa kaga fadhiisanaya waa cabdi Ismaaciil leey cabdi Ismaaciil dadka Mareykan shaqooyinka u soo doonta macallinimada ah waa ninka magaranaysa hor istaagay yiraahda umada xaasida weey anigu qofka xaasidka aad baan nacibaa ninkaas aqalka sare maanta inoo dhex fadhiya oo magaranaysa ay soo baxay lacag soo baxay leelishu soo baxay cabdi xaashi ayaa iska dhex fadhiya meeshaas Muuse Suudi oo ahaan jiray isbaara haysan jiray ayaa dhex fadhiya Faroole dhex fadhiya Faroole odayga Faroole ayaa suuna ka dhex fadhiya cabdi qaybdiidna meesha hadii lagu soo daro horta aqalka sare uu waalanay aqalka sare waxa weeye dhalinyaro meesha in la geeyahay nimankan magaranaysa ay umada Soomaaliyeed aan dan u wadin mushkilada ka samaysan mixnada ka samaysan dhalinyarada qabyaalada ku beeraya qabyaalada dadka baray waa nimankaas weey nimanka meesha fadhiya waa nimanka Soomaaliya qabyaalada keenay media la iska caaya keenay weey fada Soomaaliya afartan nin ama shantan nin kama horin in la iscaayo qabiil la iscaayo in magaranaysa ay habeen walba la is haysto nimanka inoo keenay horta waa shantan nin weey cabdi qaybdiidna ku dar cabdi qaybdiid odayga Soomaha madoowe habargiid Soomaha ka ugu daran waa kaas cabdi qaybdiid waa ka ugu daran waa kii oran jiray gabadheeda suuliga lagu soo jabiyay magaranaysa gabadheedo maydhanaysa suuliga lagu soo jabiyay Soomaha kaas cabdi qaybdiid wax sharaf oo uu leeyahay ma jirto waxa weeye waa warlord nimanka noocaas odayaasha noocaas Soomaali haddaan laga qaban meel fog baa laga doonay Soomaalinimada haddii aan laga qaban meel fog baa laga doonay waana niman magaranaysa iska shaqaysanaya Kenya lacag soo qaadanaya ahlu sunna wal jamaa qolada taageeraya waa nin waxaas inuu dhex jira aqalka sare waa home care buu noqday home care aqalka sare wuxuu noqday cabdi xaashi bal cabdi xaashi baa maanta aan ayaa tala laga sugaya ku cabdi xaashi isaga u baahan in tala la siiyo oo la keergareeyo baahan cabdi xaashi odayga inta leeg waxa loo baahan yahay in la keergareeyo in magaranaysa ay la xanaaneeyo oo wax la siiyo loo baahan Soomaaliya cabdi xaashi ku leeyahay aqal ma keenayo aqal kuma jiro waa ninkii habeenkii lahayd maqlayseen farmaajo bil amaara wuxuu igu yiri isugu waan soo kaacay waxa uu TV ka sheegay ninka waxa TV ka sheegay ayaa meesha dhex fadhiya waraqal kan sare home care buu noqday waraqal kan saran over 80
sideetan waxa ka sarreeya ayaa ka buuxa dhalinyarada meesha waxaan leeyahay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi waa in laga ilaaliyaa samatra waa in laga ilaaliyaa cabdi xaashi horta ma soo noqonayo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi walla inaan meesha imanayn hore ayuu aqalka sare baaba uga dhigay cabdi xaashi soo markan ninka la yidhaahdo magaranaysaay muuse suud iyo laxowde isagu guddoomiye ma noqonayo kaasu inay samatarna ha laga ilaaliyo meesha inaa samatar hadduu aqalka sare guddoomiye ka noqdo waa burburkii soomaaliya bay noqonaysaa cagteen saareen cagtaa la saaraya burbur soo mad garan markaa nimankaas waa in meesha ummadda laga qabtaa laga horleexiyaa nimanka waa laga horleexiyaa waa niman magaranaysaa tuuganimo iyo isbaaranimo isku bahaystay nimankaas mee faroolna uu ku jiraa faroolna muxuu qabtay faroolna waxa weeye waa oday magaranaysaa isaguna federaal iyo dastuur ka sheekeeya khilaafkiisa badan mushkiladiisa badan war raggani misma dhaawanayo waxaan isku wada dar dhammaantood waxaan isku wada dar dhammaantood nina qabiilkiisa ma matelo nina magaranaysaa meel maamuladoodii baa laga soo wada eriyay dhammaantood oo yacni maamuladooda xataa ma jeclaan raggaas maamuladooda xataa talooyin fiican ma siiyaan ma fahamti qolo walba wuxuu magaranaysaa heegu samaystay halkaasuu ka taageeraya markaa nimankaa ummadda ha laga qabto waxaan usoo noqonayaa qoorqoor berri 10 subaxnimo harimacadu way soo socdaan odayaashii duubka weynaaye sheeganayay ahlu sunna wal jamaaca magacaasaan horta runtii magaca ahlu sunna wal jamaaca xaal baan ka bixinaya magacaas ahlu sunna wal jamaaca ahlu sunna wal jamaaca yaa nisba sheegan karaa ahlu sunna wal jamaaca waxa weeye waa daa'ifatul mansuura ilaa qiyaami saaca ama waxa weeye magaranaysaay waxa weeye waa wixii ay ku sugnaayeen asxaabtii nebiga sala allahu calayh wasalam wixii ay ku sugnaayeen xaqay ku sugnaayeen iyo magaranaysaa wanaagay ku sugnaayeen ayaa waxaa la idhahdaa ayaa loo nisbo sheegta ahlu sunna waljamaaca waana jamaacada dadka shaaficiyadoo dhan ay haystaan waa jamaaco magaranaysaay sunnaha nebiga sala allahu alayh wasalam dabaqda ka shaqaysa xaqa ka shaqaysa baadilka diida wanaagga iyo magaranaysaay in ummadda laysu hayo iyo in dhiigga islaamka la daadiyo ahlu sunna waljamaaca marna kama taliso ahlu sunna waljamaaca waa waxay ka talaysaa nabadda iyo wanaagga iyo horumarka waana kii asxaabta haysteen marka magacaa fadlan nimanka al-shayaadiin baa la dhahdaa magacooda saasaa lagu jawaabaya arrinta soomaaliya bal aan ka rogo haddana saar waxaan rabaa caawa magaalada laascaanood waxaa laga ururinayaa sida ay wararku sheegayaan dadka ka soo jeeda koonfur ayaa waxaa laga ururinayaa saan magaranaysaa maqlayno magaalada laascaanood horta maamulkaa meeshaa ka jira muuse handaraab ama heegada la dhahdaa nimankaas cid ay horta u turayaan ma jirto waa niman qawleysato ah oo dalkaa kusoo duulay somalilan la leeyahay khayraadkiisa gurta dekeda berbera magaranaysaay qusuur ka dhistay hantidii ummadda magaranaysaay ka dhistay wax walba cid ay u magaranaysaay wanaag horta u samaynayaan ma jirto caawa waxaan maqlayaa in la leeyahay dadkii koonfura kasoo jeeday baa laga ururinaya meesha waxaasna waxaa looga jeedaa un magaranaysaay waxa weeye waa dulmi meeshaa ka socda dadkaasaa la rabaa in laisku maadaama aqalkii sare ay dee dadka horta iminka arrintii qadiyadii somalilan la odhan jiray iyo calankii loo ordi jiray iyo qiiradii somalilan horta wixii hoos bay u dhimeen dadka somalilan jooga waxay eegayaan ay dhowrayaan runta haddaad dooneysaan what's going on Somalia haddii iminka Soomaaliya hagaagto doorashooyinkaas si fiican u qabsoomaan maxkamadda Soomaaliya ku guuleysato ay Soomaaliya iminka hagaagto dadka hargeysa joogo dhan waxay u socdaan magarasa Soomaaliya u socdaan waa sababta siyaasadda Soomaaliya iminka focuska loo saaray miyaad maqashay wax hargeysa waxa ka warramay iyo Muuse Handaraab iyo waxa ka warramay Muuse Handaraab sheekadiisu waa local Muuse Handaraab magaranaysaa wuxuu wadaa waxa weeye wax wanaagsan ma dadkii laascaanood baa habeen walba waxa lagu dilayaa magarasa waa dilal qorshaysan baa la sameynaya inay kaahin baa ka kooban ragga wax dilay inay kaahin intuu dadka hub soo sii odhanaya isdila dhulbahantii madaxa la isu geliyay madaxa habeen walba ninka wax dilaana waa baxsanaya ma fahanta marka
dhulbahantii meesha joogay way kaceen way mudaharaadeen waxay yidhaahdeen waan iska ridaynaa heegadan meesha joogta iminka markaa nimankan meesha maraya inanka aynu hogaaminayo waxay meesha u joogaan waa inay dadka laaluushaan oo la yidhaahdo magaranaysaa kicina iska jooga iska magaranaysaa iska hurda lacagtii hurdada la siinaya iska hurda yacni dhown isku midooba laleey marka dhaqaalihii muuse soo bixiyey waxa weeye in dadka lagu dejiyo weyn sababta muuse handaraab uu u iman waayey meeshaas miyuu taga meeshaas dee ma tegi karo laasacaanood buu maalin dhowto yidhi waan tegayaa iminkana wuxuu leeyahy baxrayn iyo jamaican u socdaa alla maya waxaan u socdaa uganda haddaad runta waa ninka kolba meelaha isku kabaynaya wey ma fahan deegaanka ma tegi karo iska daa inuusan laasacaanood tagay burcaan u tegi karin war ma gaari kara meeshaas muuse maamulkaa uu heegada uu sheegaa hargeysa oo qura ma dhaafsana hargeysa ma dhaafsana iyo gabiile weliba hargeysana ma wada gaadhin annaga daanteeda ma soo gaadhin maamulka muuse maamulkaas wuxuu ka jiraa gabiile meel la yidhaahdo iyo arabsiyo meelahaasu ka jiraa iskuulladaas meesha intaas iskuulka iyo labada xaafadood buu madaxweyne u yahay ma iman karo burco ma iman karo burco doolaal baa ku sugaya doolaal ayaa meel halkan ugu jira doolaal baa dhufayska ugu jira muuse handaraab laascaanood ma tegi karo muuse handaraab waa fashil wixiisu kolba sacuudi iyo imaaraad iyo gadar iyo meelahaas kolba ha orordo ha idhahdo waxbaan shir baan leey soo mad garan marka qadiyadii somalilan hoos u dhac baa ku yimid waanay baaba'day iminka sidaa ay iminka u sheegayaan soomaaliya aqalka saraa la isku haystaa la isku dilaya marka star warku wuxuu ka socdaa soomaaliya ka socdaa star warkii xildhibaanadii baa la isku haystaa oo muuse uu rabay inuu magaranaysaa ay aqlabiyadda ku guuleysto isagoo cabdi xaashi soo dhex maray cabdi xaashi laba xubnood buu ka dhex helay meesha laba xubnood ayuu meesha ka helay soo mad garan war soomaaliyana annaga kaaga adag annagaa meesha fadhinaadeen annaga laandheerayaasha ayaa meesha soomaaliya ilaa guddoomiyaha magaranaysaa guddoomiyaha doorashada waayo waa nin garxajisa guddoomiyaha doorashada waa garxajis afhayeenku waa garxajis waxaa soo baxay oo dhan waa waxa weeye waa reerka garxajis la yidhahdo garxajis baa meesha ka soo baxay xubnaha ugu badan iyagaa kule aqalka sare somalilandta la sheegana annaga golaha baarlamaanka gebigiisaba annaga haysana golaha baarlamaanka maxay reerkan ku leeyihin waxba kuma laha meesha markaa reerkan waxba meesha kuma hayaan somalilandna waxba kuma hayaan soomaaliyana annagaa magaranaysaa doorta weligeed baa annaga hogaamin jirnay siyaasiyiintii ugu waaweynaayo soomaaliya magaranaysaa soo maray dowladii hore jaamac xad qaalib diir qadhaadh foosiye xaaji aadan buubaa sifir raggii magaranaysaa isaaq marka laga hadlayo isaaq marka laga hadlayo nimanka soomaaliya wax laga weydiiyaa waa nimankaas nimanka amtaxaya weyn oo ciiddaa ka badan ilaa guddoomiye ugu horreeyay baarlamaanka soomaaliya soo ma garan dadkan kale meesha markay tagaan wallaan gaab bay ka yihin dadkan kale meesha dadkan kale iminka meesha maala dhowtaan nagaa isku haysin waa arkaysin inay weliba garxajis oo cidagalaa qolo cidagalaaba waxay lahayd waxa ka jooga malaa ilaa dhowr kun baa jooga cidagala meesha waa arkaysin inta qof ee meesha hudheelka joogta waa arkaysin oo cidagalahayn weliba cidagal oo dhan ma ahayn jidab cidagala ka mid ah oo dooday bay hayeen oo lahaayeen kursiga aqalka sare annaga weligay bay lahaan jirnay oo ilaa jaamac yare ilaa jaamac xad qaalib oo magaranaysa ahaa dowladdii soomaaliya ahaa wasiirkii gaashaandhigana ahaa magaranaysaa taliyii guud ee ciidanka soomaaliyeed ahaa oo magaranaysaa hay-adda interbolna la soo shaqeeyey securityga caalamkana meelaha sare kaga jira xagga amniga oo farmaajona iminka la taliyo waa hargeysu jooga caawa maalin dhowtu muqdisho ka tegay iminka hargeysu joogaa soomaalinimadana waa aaminsan mabdaa soomaalinimadana weligii kama tanaasulin mar buu la yaro dagaalamay muxuu ahaa mar baa la yaro xidhay wixii ka dhacay waa tii loogaa iminkana xiniyihiisu ku jooga hargeysa cid xidhi kartaana ma jirto soomaaliyana wuu aaminsan yahay wasiir buu kasoo noqday taliye ciidanka guud buu kasoo noqday muuse handaraab waxba mu ahayn markaas markuu ahaan jiray wasiirka gaashaandhiga waa la yaqaan si fiican ba iminka farmaajo ayuu la taliyoy xagga amniga iyo waxaas waa kii maalintii farmaajo iyo dowladda timaado badan aan la shaqeeyo waa aragteen hargeysuu jooga maalin dhowto waxa weeye muuse isriis ku dayo markii uu arkay dee meesha waxa jooga ayuu candhuuftiisii dib u liqay xiniyo rag buu ku joogaa meeshaas xiniyo rag ayuu hargeyso ku joogaa annaga waxa weeye ma nihin oromada meelaha lagu xidhxidha ma nihin muusahan dharbaaxaan la dhacaynaa madaxtooyadana waan ka soo saaraynaa baarlamaankiina waan ka saarnay isaga iyo awoogiina hangool baan kaga soo saaraynaa madaxtooyada
waan ka soo saarnay dhirbaaxan weliba la dhacayna abti wuxuu ku maaraysta abtina kuma nihin waxa weeye meesha waan ka saarayna ninkan soo maad garan marka waxa weeye horta baddan Soomaaliya kiiskeedu ha naga dhamaado bal inuu Muuse Handara meeshan joogo waa la arki doonaa soo maad garan gobolladii barigana ma tegi karo waxa weeye waxaan leeyahay dhulbaante lacagtan la idin qaybinayo iyo magaranaysaa waxaan lacagtan qaadaysan joojiya nimanku meeshii bay joogaan ka soo saara meesha deegaanada ka soo saara Muuse burcu iman kari way odaygan saylici la leeyahayna saylici baan arkay caaw isagoo meelaha dhex marmaray laascaanood iyo meelaha dhex marmaray saylici waxaan leeyahay meesha aad iskaga bax intaan lagu dilay iska bax miskiin yow Muuse ku soo diray Muuse mu imaad meesha maxaa adiga ku soo diray عقل حماده موسى واك انتو ماشي iman waayay adiga ku soo diro ku yiri orod bariga magaranaysaa gobolada bariga dhaqaale u geeyo iga soo maslax saylici waxaan leeyahay adeero orod maamulkaaga orod boor baad u dhashay orod gobolka Togdheer ee gobolka Magarasa awdan orod ka booqo kaasa booqasho kaaga baahnay meeshan yaa lagu gudil iskaga tag ina kaayin waxaan leeyahay meeshan reerkaad moodaysan maaha reerku waa kacay waxa weeye reerku waa kacay way ogaadeen dhibaatada habeen walba cid wax dilaysa inaanay laascaanood joogin wax dilaa laascaanood ma joogaan waxaan waa filim weeyaan halka Muuse iyo ina kaahin ma dhaafsan filimkan soo wad garan ina cali bilaan arkay ina cali bilaa maqaaxiina fariisanayo ku faakaysanayba ina cali bilaa maqaaxiina inuu ku faakaysto oo idin soo fariisto waa qalad waxaan arkaa tiiqtiiqsi iyo kibir baan arkaa waxaas oo kale ina cali bilaa meesha waan lagu soo dhirbaaxaa dhangad waan laga soo saaraa meesha qori dawladda laga soo galay waxa soo kale waa qalad weeyaan dhulbahanto waxa leeyahay wada garab taaganahay wax iska dhiciya deegaankiina iyo wixiina uu madax banaanaada soo cishada magaranaysaa sharaftiini iyo karaamadiini iyo daruushinimadiini joojiya ina magaranaysaa kala raacdaan waxaan meesha jooga oo ina cali koore iyo hebelow iyo waxaan ina joojisaan isku daya madaxa kor u qaada madaxa kor u qaadan ilaa intaas aan idinka leeyahay qodobka ugu dambeeyay ku soo gabagabeyna waxa weeye Muuse Handara horta uu dhamaatay maalin dhaweyto waxa Hargeysa nin la yiraahdo Suldaan Habaar la yiraahdo oo habaar qaba magaciisa waxa la yiraahdaa Suldaan Habaar baa la yiraahdaa sida la sheegayo waxa la yiri waxa uu dilay baa la yiri hooyadii gudin ku dilay inkastoo warka aan hubin anagu dadku waxay leeyihiin hooyadii uu dilay oo Suldaan Habaar la weeyaan Suldaan bu sheegtaa waxa uu nabar gaarsiiyay gaadmaan ilaa xildhibaan Guruuje oo golaha wakiilada kamid ah ilaa hadda Suldaan Habaar lama soo qaban kolba hudheel baa lagu arkay isagoo ka mashaahaynaya oo ka faakaysi ku jooga waxaana waxa ka dambeeyay gudoomiyaha baarlamaanka codkii ay la siiyay gudoomiyaha baarlamaanka codkii la siiyay baa loo daba taagan yahay marka waxaan leeyahay ninka winterka ee Suldaan Habaar la leeyahay waa in si degdeg loo soo qabtaa Suldaan Habaar waa in si degdeg loo soo qabtaa Hargeysa jooga Muuse ayaa magaranaysaa dabada gashaday waxa weeye ninka dilay waa in loo soo qabtaa haddii kale waxa weeye baarlamaanka dee aadna berri bay kugu iman doontaa waxa weeye maalinba nin baarlamaan la dili doono madax lagu dhufan doonaa oo heega soo dili doontaa marka waxaan leeyahay hal la kaco shir looba baahna shirarkan badan joojiya shirarkan badan joojiya qoladiina baarlamaankii waxaan gacan wax kaga qabta haddii ladii soo qaban waayo ninka suuqa ka raadsada oo madaxa ku dhuftay isagana wallahi madaxa ku dhufta saasaan ugu soo jeedinay Suldaan Habaar waa in madaxa lagu dhuftaa nin buu dilay waa in isagana la dilaa haddii kale waa in la xidhaa wax kale meesha jira ka soconaya ma jirto meesha nidaam kama jiran waa been waxaan la isku sheekeeyaa Suldaan Habaar habeen walba meel la soo qaban kari laayay Hargeysa jooga war waxaan ugu sheekeynaa ninka Hargeysa jooga lama soo qaban kari waayin waa gardarro garab og waxaas laascaanood ba waxa weeye waa dadka lagu leynayo way dadka dira weyn kuwa laascaanood ba dadka dadka u diray soo laaya nin Hargeysa jooga 30 talaabo ama 100 talaabo gurigiisu jiro oo la soo helayo lama soo qaban waayin kuwa meelaha ka dhaca waa soo qabata marka anaga waxaan ugu sheekeynay soo qabta ninkaas barnaamijka intaas aan caaw ku soo gabagabeynaya aad iyo aad ba mahadsantihiin guul baan idin rajaynayaa 12 October maxkamadda Hague insha Allah kiiskii baan ku guuleysan doonaa ha laga shaqeeyo magaranaysaa dawladnimada iyo wanaaga Soomaaliya guul baan rajaynayaa iyo badda Soomaaliya aan ku guuleysano Kenya waxaan leeyahay down dadka soo abaabushan Kenya waxba naga qaadayaan bariis 7 ka subaxnimo
waxaa gacanta lagu soo celin doonaa Guriceel. Guriceel baa beri 10 gacanta galmudug lagu soo celin doonaa. nimanka al-shabaab ee tuugta ee culimada sheeganayana meesha waa laga saari doonaa. marka 10 subaxnimo ha sugu waayin harimacad iyo diyaaradoodii ha sugu waayina. intaas ay idin hadhayba caawa iska cambuulaysta beri subaxana iskaga baxa meesha. kulli way ka baxayaan meesha. kulli meesha dagaal ka dhicmaayo way ka baxayaan. intaas aan ku soo gabeynay. Assalaamu calaykum.